wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed waxa uu tacsi u diray mid kamid ah shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha isla markaasina kamid ah saraakiisha xafiiska wasiirka arrimaha gudaha oo aabihii ku geeriyooday magaalada Hargeysa isla markaana lagu aasay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan marka hore tacsi u dirayaa Maxamuud Ismaaciil Axmed Mooge oo ka tirsan wasaaraddan arrimaha gudaha xafiiska wasiirka oo aabihii xalinta ku geeriyooday magaalada Hargeysa cusbitaalka gargaar. Ismaaciil Axmed Mooge lagu naanaysi jiray tuulo. ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo. ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo, jannadii firdawsa ha ka waraabiyo. waxaan ka tacsiyadeynaya ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Maxamuud Ismaaciil, walaaladii, xaaskiisii, caruurtiisii, ooriyihiisii dhammaantood waxaan leenahay ilaahay cawl khayr qaba ha idinka siiyo, isagana naxariistii jannada ha ka waraabiyo. waa Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur iyo Cawl Cabdi Kaahin, telefishinka qaranka Soomaaliland, Hargeysa.